بسم الله الرحمن الرحيم. maanta waxay la tahay shalay baan u hadlay sidii maxaan ku raahdaa dadkii hore ee aad u hadli jiray oo dheereeyo maanta kelmad ma hadda qumaan u kacay anoo ka wakiila gudoomiye ku-xigeenka koobaad ka labaad ka saddexaad iyo ka afraad waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ergadan iyo bulshaweynta kulmiye oo muddo 18 sano aan ku jiray fulintooda iyo hogaankooda iyo gudoomiyahooda intayada badani oo intaaba nagu dulqaatay naguna aaminay xilka xisbiga maantana xilka culusna saaray aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ergada iyo taageerayaasha kulmiye oo dhan haddii waad mahadsantihiin waana kalaamayseen xil culus baa noo dhiibteen waxaad noo soo raacisaan duco iyo inaad talada iyo taageerada nala ag joogtaan haddaanu qaldannana saxdaanuna qabataan annaguna aan adduun qabsoonno saasaynu xisbiga ku wadanaa hawshiisa qodobka labaad kulmiye waa xisbi ballaadhan waxaa kaloo nala qabanaysaan xisbiyadu waa meel arrin lagu gorfaynayo la iskaga hor imanayo ra'yi kala duwan la midaynayo waxaanu jecel lahay cid kasta oo ra'yiga wadata laga bataa inay u dulqaadato oo u hoggaansato kulmiye badankiisu halkuu maray haddii kale kulmiye dhaba maaha hadduu ka xanaaqo codkaa layga batay oo uu ka dudo kulmiye dhaba maaha annaga haddii uu wax naga tirsadana wuxuu leeyahay golihii dhexe mustambeedkiisii taageerayaashii intuba ciddii wax aqoonsata inaynu waanino oynu iswadanno ku cadho ku maqan iminka iyo ku joogaba iyo ku cadhoon doonaba inay xeer noo ahaato xisbiga in la isku wado uu sidaa hadduu qaranka ku hogaamiyo oo ogaadaan taageerayaasha kulmiye inuu qaranku laba goor cod aqlibada ku yidhi hogaami xisbiyadii kaloo jooga iyagoo qarankan u tudhaya inaynu taa ilaalinaabaa waajib oo la xusuusnaado waan ku dardaarmaya waxaa kaloo doonaya inaan ka caddeeyo sida xeerka qodobka 14aad ee xeerka 14aad iyo xeerka xisbiguba dhisayaan inaan halkan ka caddeeyo labadii goor ee lay dooran lahaa aan isu taagi lahaa gudoomiyaha kulmiye labadiiba waa la igu doortay waana isu taagay waxa hubaala haddii alla yidhaahdo doorasho dambe anoo oday ka haddii ilaahay caafimaad nagu gaarsiiyo oon tartan ku jirin inaan xisbiga ka mid noqon doono taasina waa caddahay xisbiga guul baan u rajaynayaa iswadashaan u rajaynayaa qaranku kalsoonidu inay sii kordha mooye inaanay hoos u dhicin baan rajaynayaa intaa xisbiga laga arkaan ayaan rajaynayaa cid kasta oo dhexdeenna wax ka tirsanaysana waxaynu u baahan nahay inaan iswadanno isu waanino kala garawsanno duulduul waynu ka weynaanay xisbi ahaan duulduul iyo fudayd iyo cadho degdega waynu ka weynaanay intaasaynu soo marray xisbigu waa waayo arag taasina waan ku dardaarmayaa aad iyo aad baa mahadsantihin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu